caruuska fanaanada Nimco Habi oo xalay gilgilay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaan idiin hayaa xogta cidda bixisay qarashka arooska fanaanada Nimco Habi. Halkee ayuu ka yimid wiilka guursaday fanaanada Nimco Habi? Meeqa sano ayuu xiriirkooda socday? Labadan lamaane oo xalay ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Fadlan inta aan guda galin warbixintan muuqaalkan sii share garay si uu u gaaro asxaab fara badan. Fanaanada caanka ah ee baraha bulshada haysteeda qabsatay dhawaanahan ee Nimco Habi ayaa xalay ku aqalgashay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaana guursaday wiil da ahaan ka yar oo la sheegay inuu ka yimid dalka Talyaaniga. Xiriirkooduna waxa uu socday muddo 1 sano ah. Fanaanada heesteeda ogsoonow inaan ku jecelahay ayaa qabsatay baraha bulshada, waxayna taasi sababtay in heshiis ay u soo bandhigaan kambaniyo caalami ah oo doonaya in dhowaan dibadda ay u qaadaan. Taasina waxa ay sababtay inay soo dedejiso aqalgalka iyada iyo seegeeda cusub oo muddo Talyaaniga ku jahwareersanaa si ay ugu fududaato ka ambabixidda gudaha dalka Soomaaliya oo hadda ku aqalgalay. Xogta la xiriirta cidda bixisay qarashkii ku baxay arooska ayaa la sheegay inay tahay fanaanada Nimco Habi qudheeda oo haysata lacag aad u fara badan oo dibadda lagaga soo diray tan iyo markii ay caan ka noqotay baraha bulshada oo heesteedana iska soo duubeen xitaa fanaaniin iyo jilaayaal caanka ah caalamka oo idil. Arooska Nimco Habi ayaa ahayn aroos horey loo shaaciyay, lamana ogeen sababtii kadiska ahayd oo arooskeedu ku qabsamay. Fanaanada Nimco Habi ayaa fanka kusoo biirtay sanadkii 2014 waxa ayna soo caanbaxday sanadkii 2017 kadib markii ay kusoo luuqaysay heesteedii dhowaan gilgishay baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok-ga. Heestaas oo horaantii sanadkii 2017 xilligii ay soo shacbaxday qabsatayna magaalada caasimadda ee Muqdisho, gawaarida iyo bajaajyadana aad looga dhageysan jiray.